gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax oo gobolka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu kormeeray isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka soo yarayeen dhibaatooyin kala duwan ee haysta dadka bukaanada isbitaalka Jifa. gudoomiyaha ayaa markii uu gaaray isbitaalka ayaa waxa soo dhaweeyay mas'uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay isbitaalka. gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyin kala duwan ee ka jira isbitaalka waxa uu baaq u diray dawladda Soomaaliya jaaliyadaha ka soo jeeda gobolka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan si loo soo matabixi lahaa isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne marxaladaha kala duwan oo xilligan ku jiro. magaalada Beledweyne guud ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolada dhexe ugu weyn xaaladiisa sida dhaqaatiirta ay naga warramay maamulka isbitaalka waa xaalad aan laga sheekay karin. waxa aan soo aragnay qalab la'aanta, jiif la'aanta, shaqaalaha jooga aan waxba haysan, wax kaalmeeya aan jirin, dawo la'aanta, qalliinka hadda lagu jiray iyo qaabka loo qalliinka saxarada lagu sameynayay oo qalab la'aaneed iyo inta uu leekana operationkaas la sameynayo waxaan caadi ahayn. marka waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed halkan ku matalnaa dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee international NGOs-ka kuwa wadaniga dadka Soomaalida ah. gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay cid walba wax ka qabanaysa isbitaalka guud ee magaalada ay soo dhaweynayaan isla markaana ay la shaqeey doonaan gacan ka geysan karaa inay naga kaalmeeyaan arrintaas. waa arrin aad iyo aad u liidata runtii annagana ka weyn awooddeena iyo tabarteena ka weyn ilaahay baa awood iskale aad iyo aad runtii ugu weyn ku kala harimayna annagu waxaan ka qabanaynaa muhiimadda koowaad ee isbitaalku uu leeyahay ayadoo xaaladaha iyo bukaanka yaalaha iyo xaaladooda aad u daran yihiin haddana xaaladda aadaalata ku sugan yahay wax la sugi kara maaha waqtina la siin kara maaha waa arrin aad iyo aad u halis ah oo in wax laga qabto u baahan cid alla cid wax ka qaban kartaa inay si degdeg ah nagala qabato waan caawinaynaa waana wax la ah. عبد الشكور اسمان علي SNTV Beledweyne.